Mawduucan caaw ka hadli rabo wuxuu quseeyaa qof walboo raadiya fasir riyo. Qof walboo riyooda rabbi riyo tasoo riyooyinkiisana jecel inuu fasirto ayuu u muhiim yahay. Haddaad mawduucyadan oo kale baratid iyo micnahooda, fasirka riyadaada ayaa kuu sahlanaanayso. Micnaheeda ayaa kaa dhaadhacayo. Sidoo kale riyooyin qaar ayaa waxaa dhici karta adoo lagu fasirin inaad ogaatid micnahooda waxay tilmaamayaan iyo waxay riyada ay xambaarsan tahay oo ka turjumayso. Marka mawduucyadaanayti aaday u muhiim yihiin ilaa dhowr qodob ayaa soo qaadan doonaa ila socod walaalayaal. Bismillaahi alxamdulillaah salaatu wassalaamu calaa nabiyina Muxamed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Sidaa interviewga idinku sheega walaalayaal, waxaa rabaa inaan ka hadlo dhowr mawduuc. Dhowrka mawduuc waxay u muhiim tahay qof walba fasir riyo rabo. Sidoo kale waxaa ku jira mawduucyadan ka hadlahay fasir riyooyin. Riyooyin hadaa ku riyootid micnahooda waxay tilmaamayso. Mawduucyada haddii aan ku horeeyo oo ku saabsan qofka riyoonay ahmiyadda u leedahay. Lambar 1 waxaa waaye riyooyinka loo yaqaan axaadiisa nafs. Riyooyinka loo yaqaan axaadiisa nafs hataa haddii lagu fasiro micno kuma sameynayso ilaa waa axaadiisa nafs. Matalan ka soo qaad isbuuc ka hor waxaad niyadda ku haysay safar, waxaad niyadda ku haysay guur, waxaad niyadda ku haysay alaab inaad soo gadatid. Wixii 2 bilood mise hataa bil mise 2 isbuuc ka bacdi aad ku riyootay ahmiyad kuma laha. Micnona ma lahan mana aha riyo xagga rabbi kaaga timidoo ay markaas micno ku xambaarsan maaha. Mawduuca kale waxaa weeye riyada cadaabaha. Dadka markay ku riyoonayaan cadowgaaga waxaasa riyada lagugu fasirayo matalan fasirka aad ka fasiranaysid mise aad akhrisanaysid kitaabyada oo marka waxaasoo kale aragtid niyadda haska dhihin cadaabaad leedahay waa lagu necab yahay waa lagugu maqan yahay midaasna ahmiyad aad u weyn ma laha. Laga yaabaa inaad qof beri xumaysay oo asiga uqdud ku hay cadaabo kaleba aana dhidin dhexmari lahayn adaa xumaato u geystay. Mida kale waxaad ogaataa walaalayaal qofka hadduu yahay qof wanaagsan la jecel yahay cadow ma yeesho. Cadow waxaa yeesha badanaaba qofka xun qofka dadka xumeeya. Laga yaabaa marka riyooyinkaaga ay ku jiraan cadaabo badan lagu leeyahay cadaabadaada saasay cadowgaagiyaa ku haysta cadowgaagiyaa inuu ku dhibaatay rabo. Fasirka riyada ma fasirka markuu ka saasoo kale kugu fasirayo uqdud yay ku galeen dad haska maageen ha shakina ha cabsanin waxaad dib ugu noqotay naftaada dadkii aad xumayso kala cafis weydiiso qaasata hadda bil barakeysanaa ku jirnaa oo in lis cafi aad u fiican tahay marka cafis weydiiso qofaad beri isku dhacdeen qofaad xamatay qofaad dhibaataysay cafis weydiiso si oo qofkaan cadaabo kuugu qaadin oo sigina qalbiga kuugu hayn. Midaasna waa midaasoo kale iyada markaa ku riyootid in cadaabo leedahay muhiim ah inaad mufasiraad ula degdegtid waxaa macquul ah dadkaas aad dhibaataysay inaad ajar samaysatid oo rabbi ku leeyahay ajar samayso cidaasayta adigaad uqdada geliso xumayso cadowga kaa dhigatay soo raali geli. Riyadaasoo kale sidaa u qaado. Riyada kale waxay tahay gabdhaha weli guursanin mise wiilasha oo xiriirka leh in badan waxay ku riyoodaan wiilkii xiriirka ka dhaxeeyay wiilkii isjeclaayaan gabadhii isjeclaayaan iyagoo isguursanay iyagoo ilmo isku dhalaa iyagoo safar isku raacay. Middaa waa xadiisa nafsi la'aan oo adaa niyadda ku hay adiga arrintaasi in badan yacni maxaad ahmiyad iyo keer gareenayo sidaa darteed marka idan shay tabiici inaad waxaasoo kale markasta aragtid. Riyooyinka kale waxyaabaha aad ka baqatid marka adiga shay aad ka baqanaysid shaygaasaytina mar walba riyo aad ku arkaysid taani iyadana ahmiyad ma laha hataa haddii lagu fasiro micnaheeda marka mufasirka wuxuu ku yiri riyada waxaasay kuu fasiraysaa adiga waad sugaysaa xad leedahay riyadaadan maxaa ku dhacay maxaad u arki weyday natiijadeeda. Riyadina riyoba ma ahanba waa wax adiga naftaada ku saabsan. Riyooyinka kale waxaa ah qarowga qofka inuu iska qarwaayo wuxuu arkaa waxaas waxay yihiin inuu ka saynin maxay ahayd mashaakilkiisa maalintii hadalkiisa wax daawashadiisa dadka uu ku dhex jiro waxaasaa badan
maskaxdii ayaa biisi ah marka caawo kale waxaad arkaysaa waxyaabo isku dardarsan aadan kasi karin riyooyin aad kala bixin karin adigoo maxaad meel jooga adigoo meel aadaya adigoo safar ku jira adoo dad dhex jooga yacni wixii waxaa maskaxdaadii oo maalintii aan xasilooni dhan helaynin fursad yar naftaadaad u helaynin dadaad ku dhex jirtaa ciyaaraad ku dhex jirtaa shaqaad joogtaa suuqaad joogtaa waxyaabahaas ay iidan macquul micnaheeda tahay taasoo kale iidan hataa haddii laguu fasiro matala mufasirka micnooyin badan ayay riyooyinka leeyihiin adoo bulsho ku jira micnay leedahay markaasi wuxuu kasoo qaadanaya xaaladaada nafsiyadeed lama socdo wuxuu kasoo qaadanaya adigoo bulsho ku dhex jira adoo maxaad riyooyinkaaga iska qaro waxaa yihiin micnihii oo si kitaabka soo qoriyo kuu fasiraa laakiin micnihii adiga hadhowd waxaas leedahay maxay kugu noqon weyday mufasirkii dembi ma lahan adiga ayaa xaaladaada gudaha og mar walbana mufasiriinta waxay yidhaahdaane qofka marka hore soo sheegaya ha soo raacay xaaladiisa si ay isku waafaqaan riyadiiyo xaaladiisa hadda marka waxaan gudagalaya fasirka riyooyin waxaa kaloo hal qodob aad u muhiima jiro kaa muuqaal dambaa ka samayn doonaa laakiin in yaraa hadda hordhaca idiin siin doonaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shaydaan ma soo mateli karo iskamana soo dhigi karo taa waxaa waye qofka suuradiisa yaqaano hadduu riyo ku arka laakiin su-aal hadda kahor waxaa jirta in badan inaan kasoo hadla aan rabay oo ah shaydaan allah ma iska soo dhigi karaa riyo ma ku arki karaa taas aad ayay u muhiim tahay waayo shaydaan inuu allah iska kaa soo dhigo oo jarkaa toraa laga yaabaa marka mawduucaas ayaan insha allah hadduu rabbi raxmaanka raali ka noqdo aan soo qaadan doonaa haddaad arrimahaas xiisaysaan iyo arrimaha oo matalan inuu shaydaan allah iska soo dhigi karo iyo waxyaabaha siitina waad iigu soo qori kartaan qaybta commitee mawduuca koowaad oo ah fasirka riyada hadduu qofku ku riyoodo gabadha hadday ku riyoodo toob cad iyadoo toob cad xiran mise soo gadanaysa mise aragtida hataa toobka cad laabudda laba shay guur mise doonis hadduu guurkaa dhici waayo mise doonistaa dhici weydana rubamaa maxay ahayd iyada inayn ogolaanin mise ayna soo dhaweynin mise hataan calaf jirin laakiin arrintaa waxay badanaaba ay tilmaamaysahay inay arrintaa imaanayso hataa hadduun calaf dhicin inuu imaan doono wiilkaa kusoo doonanayo mise guurka kusoo bandhiganayo gabadha la qabo hadday ku riyooto toobka cad waa uur hadday tahay uur raadis warqadda cad waxay tilmaamaysaa sifooyin wanaagsan warqad cad oo keliya haddaa aragtid waxay tilmaamaysaa baraa'a dacadnimo waxay tilmaamaysaa nadaafad waxay kaloo tilmaamaysaa nadaafad xagga diiniyan inuu qofkaaniitu fiican yahay muqlis rabbigiisu yahay inkastoona muuqaalo hore aan kasoo sameeyey warqadaha cad maadaamaan mawduucyadan soo ka koobahay waxyaabo kaloo muhiimaan ka hadlaynaa warqadda cad ahamiyadda ay leedahay waxaway intaa mawduucan kaloo dad badan ay ka baqdaan hadday riyo ku arkaan meyd oo wax kaa qaadanaya dhibaatooyin ma wada ah yacni meyd wax kaa qaadanaya shar ayaan loo qaadanin meyd wax kaa qaadanaya inuu wax u baahan yahay inuu sadaqo u baahan yahay sidaa hore usoo sheegnay meyd oo wax ku siinaya aad ay u fiican tahay laakiin hadduu asig wax kaa qaadanaya waxaad raadisaa gadaashiis meydkaasaytay adduunka markuu joogay xaaladiis siday ahayd inuu maxaad ficla ahlu cibaado ahayn oo tooba iyo u baahan yahay aan dhehee duca iyo sadaqooyin laga yaaba halkaasaan kusoo koobaya walaalayaal sheer noo dhaha noona laag